tababarkan ay soo qaban qaabiyeen midowga dugsiyada quraanka gobolka Banaadir isla markaana uu bixinayay Ustaad Cabdiraxmaan Xuseen Faarax oo loo yaqaan Sheekh Xadro ayaa ujeedkiisu ahaa in macallimiinta laga wacyi geliyo waxyaabaha lagu daaweyn karo in ilmuhu ay dugsiga ka cabsadaan iyo sidoo kale inay diidaan barashada quraanka kariimka. Ustaadka ayaa si weyn isu dul taagay waxyaabaha muhiimka ah ee ku aadan in carruurtu aysan diidin waxbarashada gaar ahaan dugsiyada quraanka. waxaana qaybihii dambe ee tababarka macallimiinta la siiyay jaanis ay markaasi su'aalo ku weydiin karaan iyo sidoo kale in dhankooda ay ka dhiibtaan aragtida ku aadan sida carruurta iyaga oo aan cabsan loo bari lahaa quraanka kariimka. inaad arday aad u samaysid wax loo yaqaan discrimination waxa weeyaan tamyiiz arday ka dhex socdo ama magac u bixisid gaar ah ama tilmaan gaar ah siiso waxaasoo u keenaya inuu dareen khaas ah qaato waa dhibaato u geystay waxaasna weli uu xusnaanaya waa meesha ka dhahan macallinka xun lama hilmaamo dibka u geys daraadiis macallinka fiicanna lama hilmaamo wanaaga u geys daraadiis macallin mar jaamacad noo dhigi jiray wuxuu noo sheekeeyey ardayda way kala waarteen midna waa badii midna waa qof oo faahin oo hore wax ka fahma marka ardayda waxa ku jiray arday oo imtixaanada la soo qoritaan ku daaha laakiin faahin ah imtixaan baa waxa la geeyay dhowr boqol arday waxa loo qabtaa 2 saacadood anu wixii way ogay ardayga inuu 15 saac ku sameeyay waxbana waana dhici doona hadii arday la lama dhigo sida daradeed wuxuu dhahay waxaan ka mid ah musharifiin meesha dhex wareegayay marka saacadii dhacday hal beyd buu qoray 5 kala u sii dhiman saacadina arday buu laga aruush wixii gacantaan qabtay miiska idaaradan geeyay waxay isha igu haya isoo aqashina barta fariisiyay suu wuxuu qorayay 5 saac ku qaaday wixii dhameeyo wuxuuna ku baasay jeed jiddan haddii maantii hore laga dafira hal ilaa kan warqaha laga qaadana hore ka dhici lahaa soma sidaa daradeed waxay dhahaan su'aal macan ardaa mutaqaana macal ardaa waxa arto ardaa mutaqaana ardaa ardada aqoonin dhibaato la kulmaysa ardaygan muxuu jecel yahay muxuu necab yahay maxaa ka xanaajiya muxuu ku farxaa intaanan dhiginin darsiga oo aan darsi bilaabinin ardaygan waa inay xawaashta aqaana haday maalin u yimaadaan iyo haday hal maalin labada kulmo isku qaymid laakiin isaga bilaabo hooyatada wiilkay cali ka hor cali aska cali ma garanayo bariis soo lama bare macallinkay ku taasharto waa ina cali iyo faarax iyo maxamed iyo xaliime caashi kullu taqaanaa dush waa ina ka tirada hebel halkaas quraanka maraya saas ku fiican yahay badanaana waalidiinta xumaanta loo soo hormarsho wanaaga loo soo hormariya hada waa wax yar oo waxa jira oo in la sax u baahan laakiin marka hore lagama naxiyo laakiin hadda mar walba dacwo naga soo horeyso in kaar buqa waa dhibay quraanka oo baxo waa damiina waa soo dhahay waxay noqonaysaa meesha dhan fawdo away waxa la carruurta kan macallin mid kale iraad marka waa in naga soo horeysaa ducada iyo wanaag sheeg dowladani waa dowlad aad u cajiib badan faa'iido weyn oo ah macallimiinta madaarista quraanka ah khaasatan joogto Soomaaliya waxaan malaynayaa carqalaad kala sheegay iyo mushkilaadka qayb weyn ayaan ka nahay dadka haysato ilmaha madaarista ka cararaan laba qodob oo sabab ah qodobka koowaad macallimiinta quraanka dhigto ee u badan xoogsato aysan haysanin xirfadda macallimada oo carqalad ka wadana haysato qaybta labaad diintii barashadeedii ee laga dhigay wax aad u hooseyso aysan qiimo lahayn laga fadilay madaarista maadiga ah taasoo lagu bixin qaarkood meelaha qaarkood lacaga oo free ah si dadka loo soo jiito meelaha qaarkoodna la gaarsiiyay marxalad sare oo maadiga inuu yahay afdal kulli shay magacayga waa Cabdilwaaxid Ibraahim Kashka waxaan mahad celinayaa sheekheena Sheekh Xadra iyo Almatiin Media sidoo kale dhamaantiin waa mahadsantihiin anigu maadaama la yiri sidee ardadaas xal lagu heli karaa oo cabsanayso madrasada ka cararayso hal tala kaliya soo jeedi lahaa horta macallimo adiga sabab u noqon karo ardadaas in maaragtay isan dugsiga ka carar waa laakiin bisharti hadii aad xirfadaadana siyaadiso oo macallinimada sidoo kalena aad noqoto macallin value qiimo leh oo yaani waxa uu soo gudbina ay dadka jeclaysan karaan oo lagu soo xiro karo oo ardadu ay jeclaan karaan oo ciyaarsiiya تعلينا كسو كوبنا لكن تعلين كليه كسو كوبن تربيه عيارسين أكو درن فكرك إن أرضي ذا لا يريو حلوش ويكجرتها لكن
laftigoodii madaarista la tilmaamay usha ma ka guureen waayo su'aal kale waayo ciqaabtii iyo cunfiga ma ka guureen madaaristaas hadda la tilmaamay tobanka arday macalinka u ahaayo yaa xaqiijin kara inay ka guureen ushi cid xaqiijin karta ma jirto bal iskalaafay waa ka jirtaa waa ka jirtaa cunfigii iyo ushi waa ka socdaan tobanka arday ninka hay weli cunfigii iyo ushi waa wadaa ma garatay ma ka guurin weli muusa ka guurin waxaa kaloo cilada jirto haddaad dhahdo $50 qofkan ha laga qaado adiga waxaa la macaamishay dabaqada sare ee magaaladan aa la macaamishay $50 ninka bixin karo waa un labo nin dee wax haysto magaaladii wax ku haysta inay qurbaha jiro oo cunugiisa usoo shaqaysta labadaas qolaa bixiso islaantii yaayada gadaysay $10 ogoleyd iyo $15 ogoleyd ma aadi karto dugsigan 10 cunug dhigato ee $50 la yiri ma aadi karto haddii aan isku dayo oo fikirkayga ka dhiibto waxaan isleeyahay marka koowaad in oo horta marka koowaad macalinku jeclaado madarasada horumarkeeda see tadawur ugu samaysaa madarasadan see ilmo u soo saartaa nadiif asaga kow inoo jeclaado oona ka fikirin waxyaabo kale iyo dana gaar markaasna ilaahay oo u baryo oo duceysto asagana ay ikhlaas ka tahay markaas waxaan isleeyahay xal waa loo heli karaa xalka koowaad xalka labaad waxaan isleeyahay in ilmaha la jecleysiiyo lagu jecleysiiyo ayadoo la garaacaynin ilmihii markasta loo sheegay xadiis markaas koow madrasada soo gasho maalintii subaxdii aad rabto inaan daraaso bilaawdo aadna dhihin waryaa hebel xaa ka baxday xaa gaftay xaa ka dhacday qaylo aadna ku soo gelin laakiin aad ku soo gasho inaa ilmihii u sheekayso farxad geliso ogaato mid xanuunsan maa ku jiro mid baahan maa ku jiro xaalkooda soo yahay iswareysatiin bacdeenne aa idinkoo wada faraxsan madrasada idiin bilaabato adkaartii akhriseen kabacdina aad waxeetood si tartiiba oo farxad ku jirto niyadiisa cunuga degan tahay dhan kasta aad ka dejisay kabacdi aad dhahdo cashirka markaas keen tababarka markuu soo ilaaday waxa inuu la kulanay qaar ka mid ah macallimiinta ka faa'iideystay waxa ayna u mahad celiyeen midowga dugsiyada quraanka ee gobolka Banaadir oo soo agaasimay tababarkan iyo sidoo kale Sheekh Cabdiraxmaan Xadra oo ah macallimkii bixinayay tababarka anigu waa magacayga Cabdimadiid Mir Salaad kana ka soo qayb galay dowradan noo qabtay midowga macallimiinta quraanka dowradu waxay ku saabsaneed laba mowduuc aad iyo aad u muhiim ah labada mowduuc ay ahaayeen الرهاب المدرسي حاكينا أرضي إنه كعرر مدرسة مدوسية يا أدري أرضي إنه كعبصده مدرسة محاكينا والله خاصة شيخي قبل المحاضرة وحوين أنا كفايني إلهي سبحانه وتعالى خير بالله السيو وحوم هدعلنا مدعو معلمين تدورنا نوقبتي يا شيخ سوجيدي آدم فايني وحاعصنا مرلوات مرسد حاد مر أفراد إن دوريين كانوا نوقبتان وكسر العليان وعرضنا معلمين سي وناسة وقبتان أنا ومقعي ويا عبد الله إبراهيم أحمد أبو زرع أكو مقعير كان ميدا ضد كسوق قبل دورة آت وقيمها بدن وينوصل طبعا قابيين اتحاد المعلمين مدارس القرآن الكريم رنتي مكة قواد الله سبحانه وتعالى يا مهد أسقناتين سوا في دورة آت وقيمها بدن سوسق لو حقوم علنا يا مدو جسوا قابيين ودورة نوصل تجليه إلهي كسكو سبحانه وتعالى يوم معلم كي نوقبتي دورة لفتيسه كنت دورة وحياة دورة عادي أو قيمة بدن كون الصعب سنوات أسبابته كيني كرتو أرض الله وحبره مدارس القرآن الكريم كإني كعررات إيوه وحيابها الوجود داويه أيضا وحوا إن بدن لجور بقية أصل وحيابها كيني كرا هي أسبابتي لفته الوجود علاجين كرا مركب حلنا هاي الله أيضا بركايه معلم كنوسو جدي وحوا دورة وحوا أرض كفاية استنتبه ومهد علينا سأصل ومهد علينا ولا يلفتوا وقت قضوا ناهوري وبرامج كان خيري سوق بناي وسوق باهناي على الله إذا بركيه ووري المتين ميديا يا أصحاب تيسا جزاكم الله خير إذا الله خيرك وناجح كدارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ahan dowladii koowaad ee soo qaban qaabiyaan midowga dugsiyada quraanka ee gobolka Banaadir hay'ashee waxa jiray tababar hore oo dhamaantood la siinayay macallimiinta daraasaya quraanka kariimka isla markaana ka howlgala gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xiran